بسم الله. مقعيد وحالي عبد الله يوسف محمد أفاينك برلمانك وجر مانتا وهنكون فرح صنعي إن مرتي شرف لها نوعي مادين نيروبي وككوان نامليف National Association of Muslim Leaders Forum Chief Khadi سخيان بانلجوجو lawyerin Kenya Muslim lawyers ka imaadeen oo ayagan la jooga subkem chairman iyo culimada wajeer baan maanta insha Allah aan kula kulmay mabda'an maantana aan ka doodayno waxa waa arrin ka socotay baarlamaanka wajeer waxaan u maleynaa hadda muddo 2 bilood ah oo ku xisaabsan bill yiraha Wajir County Mira and other substance control bill muhiimada sharcigan uu leeyahay waxa waa in aan ka hortagna isticmaalka qaadka iyo daroogada kala oo wajeer laga isticmaalahay waan ogsoonahay arrintan waa arrin halis ah dib weyn bay ku haysaa wajeer si kastaba arrimaha bulshada bay burburinaysaa ganacsiga wadankii iyo dhaqaalaha wadanka ma aragtay county-yaal kala u faa'iideynaya cilmiga iyo tacliintii iyo barbaarkii dhalinyarada bay dib u keenaysaa markan anagana reer wajeer hantii nahnay ama county-yaashii waxaana la siiyay awood aan ku dejina ama aan ku hagaagsana sharciya ma aragtay u doonahaya daawa wixii oo dib oo anagana haysta sidaas daraadeed arrintan waan ka shaqeynay muddo badan bayna u qaadatay haddana gabagaba bay joogtaa waxaan u maleynayaa insha Allah taala in kasto anaga aan afjari karin sidii ma aragtay isticmaalkan daroogada iyo qaadkaba ma aan afjari karna laakiin waxaan rabnaa inta awoodayna inta dadaalkayna insha Allah taala inaan ka geysano sidii ma aragtay isticmaalkeeda aan ku yareyn lahayn insha Allah taala حكمت الخطبة هذا أسكان إنسان وهذا الناس كيدين صارن وح لو قوانا يقاد وحكمت ده وهرين إن معركتي ملا لغة رجال خاصة أو لو يبنايا قاد كأجري دونته إن عن ممنوع دونا ملاها مارت أما مارت سكول ده أما مدرسة دينكا أما بلشة أي كوبادان تاي مارتي أي أود حيسة ماشي قات لوي يبنا يملها أي وقت أي أود حيسة distance أما وش distance أود حية إن dadkii oo la arka maaragtay daroogada ayaga ama iibin haya guriyashu ku iibin haya in ay county government enforcement ay maaragtay awood u leeyihiin in guriya ayaga ay galaan oo ay baaraan oo daroogada iyada la qabta oo maaragtay sharciga la cuskudo insha Allah taala waxaan qodobada kale oo meesha ku jira waxa kamid ah in dadka iibin doona qaadka khaasatan kuwa oo maaragtay soo gelina county-ga registration ama diiwaangelin bay u baahnaan doonaan haddii ay diiwaangelintaas ay daba maraan sharciga lala taagsan programkaas oo ma aragtay aad iyo aad isku hawl jiro habkii loo ciribtiri lahaa loogana hortagi lahaa qaadka moqokaaga iyo mukhadaraadka kale oo ummadeena aad iyo aad u saameeyo marka waxa farxad maanta inaan ma aragtay meeshan county assembly oo nacazumeen aan ra'yigayna anako qaybo kala duwan xagga shariicada islaamka markii la fiiriyo xagga ma aragtay qaadka iyo moqokaaga iyo mukhadaraadka si u saameeyeen mujtamaceena bulsho ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo amni ahaanba ay caafimaad ahaanba dhammaanba ma aragtay intaas oo qaybood inaan ma aragtay aan ka jeedinayno marka waxa weeyaan muhiimadda waxa weeyaan sidii loo badbaadin lahaa ummadeena oona looga ma aragtay ciribtiri lahaa mukhadaraadkan dhammaanba oo qaadka uu ma aragtay kow ka yahay nimid oo ku saabsan biilkan ama sharcigan hadda baarlamaanka Wajeer County la keenay oo doonaya in la xakameeyo in caqabooyin ma aragtay yaani lagu soo jeediya qaadka cunitiisa iyo ka ganacsigiisa magaalada iyo county-ga Wajeer ayaan u nimid oo naga raayaan ka dhiibanaynaa
waxyaalaha anaga marka maaragtay anaga aan muhiimad siinayno waxaa waaye horta sharciga inay la mariyo wixii sharciga u taabanayana ay bulshadii wax faa'iido u keento haddii aan hadda maanta aan la mamnuuci karin qaad cunistiisa iyo ka ganacsigiisa countiga ugu yaraan waa in la xakameeyaa oo controlli maarta loo sameeyaa hadda oo kalaata khamrada sharciga Kenya maartay waa ka bannaan yahay laakiin haddii lama ogolo in khamrada lagu gada banaamaha in raashinka meesha lagu gada khamro lagu gada lama ogolo dhalinyarada aan kibaanada aan gaarin looma ogolo inay khamro meel lagu gaday ay joogaan ama ay ka shaqeeyaan ama lagu arko lagama ogolo khamrada waqtiga la cabayo waa xadidan tahay qalbihii waqtiyaal maartay loo furo ayaa jira meesha khamrada lagu gadana laguma gadi karo ganacsi kale laakiin qaadka anaga wuxuu noo noqday shay meel kastaba lagu gada si kastaba loo gada da kasta ay gadaan meel kasta maartay yani naga saameeyay bulshadina wuu baabi'ay maxaa yeelay waxa ku dhex jira mukhadaraad kale ayaa lagu dhex daraa qaad naftiisu waa mukhadaraad culimadeen wax badan baa noo sheegtay inuu qaad mukhadaraad yahay inuu xaaraan yahay waxaad moodaa inuuba yahay hooyada xumaanta dhan hadda bulshada Soomaalida haysata alxamdulillahi rabbil aalamiin wa salaatu wasalaamu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd qaadka iyo mukhadaraadka kaleeto oo dadku ay isticmaalaan dhibaatooyinka bulshada ku haya wax la soo koobi kara ma aha maxaa yeelay rasuulka alayhi salaatu wasalaam oon hawadiisan ka hadlaynin oo waxyu ka hadlay wuxuu sheegayaa khamradii bahashan la yiraahdaa ama maandooriyaha dhan ay soo hoosgalaan inay tahay ummul khabaa'ith wax allaala wixii xun ayay hooyo u tahay ay saldhig u tahay ay ku horseedaa marka qofka isticmaala ama bulshada isticmaasha maandooriyaasha shar walba ayaa ku kooban wax allaala wixii shar ah oo adduunyadoodii maxaan ku raadaan u rooneen aakhiradoodan u rooneen ayay wada koobay taas ayaana ku sugannahay ummadeenna muddo badan baa baalka qaadka la yiraahdaa ay u arkaysay inay baasto la mid yahay baastada la cunayo oo lagu casheeyo sida caadiga baasadii marka uu ninka casheynaayo 10 daqiiqo ka badan ma cunayo cuntadaas laakiin bahasha inta loo fariiso galbaha casri 10 saac inta loo fariiso ilaa 6 saacaynimo inta alsan la cuni intaas waqti lumiska intaas ayaa ku filan xilligaas xilli la nasan lahaa maskaxiyan dadka ummadda dhibaatooyin fara badan ay keeneen ummad waalan hata kuwa waalan waxaan jirin ay iska noqdeen dad غير mas'uula reerahooda ay kala daateen intaasoo gabdho ilmaha lagu furay oo ragoodiga غير mas'uul ay yihiin ayaa la koobi karaa marka dhibaatada qaadka noo kansada wax la soo koobi kara ma aha waxa kale oo sii dheeraada arrimaha security iyo amniga dadka waxaan ku jira in badan waxay galayeen adowti xatooyada inay wax dhacaan ay waxdaan nin alla rinki rabo inuu shar doonayo qoladaas ay soo kaxisani hoogaa yar xashiish buu ugadi ama qaad buu ugadi kuwaas marka baalada kala gadani siyaasiyiinta ayaa isticmaala marmar oo madaxa isku dilayeen markii ay niga Soomaaliya qabiilad baa marmar isu laayna dadkii la Soomaaliya dadka noocaas way qaad baa intaas ku filan ayaa loo gadi wixii xoolaha ku baabay lama sheegi karo hadii maqlayna daraasad laga soo saaray maxaan ku raaday magaaladana waxa soo gashay baa leeyahay hal kanta ama laba kanta ay maalin walba soo gashay halkii kanta wuxuu qaadayaa 10 tan ayuu qaadayaa 10 tan waxa lagu qiyaasay inay tahay maga kila ya waxa weeyaan 8000 watt 8000 tons watt mar 8000 tons watt ayaa ka soo baxaya ama 10000 ayaa ka soo baxaysa 10000 waxa weeyaan ku dhufo bal maxay ku raada in kushilin ila ala kiila hada ku dhufatay intee soo baxaysa marka intaas lacag baa baxaysa man walba lacagtaas faa'iido ma runtii hatta faa'iido haday jirto dadka ka ganacsada lacagta ku noqota ayaa iska leh laakiin madarrada iyo dhibaatadii ka dhalanaysa ayaa ka sii weyn marka anaga arrintan qaadka wax iska caadi aan u arkay jirnay waa loo saaxday hadda waxa weeyaan faray ka baxday farayay ay ka baxday marka maadaama kuwaas ay jireen dadka waxba u arkaynin kuwa kalena way soo dhuunteen waa weyn ayaa soo dhuuntay marka qaadka markii la eego maadada ku jirto oo maxaan ku raada dadka fasaadinaysa maskaxda dadka ay fasaadinayso waxa lagu tilmaamaa inay tahay mukhadaraadka oo shadalwanka United Nations ugu jira kan ugu xun harooyinka ayaa kamid aha kokaynka ayaa kamid aha kaas ayaa lagu maxaan ku raadaa ay isku lugiye ma garad marka dhibaatooyinkaas fara badan ay leeyihiin marka dunka waa ka marfuuq waxaan ahayn anigi marka hadii ay noqoto in dad yar ay ka faa'iideystaan lacag ay ka helaan muslimka qofka muslimka horta waxa weyn uma banaano nin wax haaraanta wax ka qaato awalan umuman ninka naftiisa ka faa'iideysanaya gaalka ama غير muslimka huwa noqdaba faa'iidadu helaya dhibaatooyinka madarrada u geysanaya shacabka ayaa ka sii weyn marka madarrada saas ayaa kamid aha marka saa darteeda anagu wada shaqeynay kulliba anagu odayaal baanu kamid nahay
madaxda ayaan ka mid nahay marka madaxda iyo maxaan ku raadiyay culimada haddii ay wada shaqeeyaan shar fara badan baa laga hortagi karaa marka min baabi tacaawun ala albirri wattaqwa maxaan ku raadiyay wanaag iyo samafal ila isu kaalmay darteed ayaa halkan u joognaa qoladeena county ay bilowday arrintan oo horseed u ahaa oo biilkan soo saartay sida lagu xakameyn lahaa maxaan ku raadiyay aafadan oo maxaan ka ummadeena qabsatay intaas waqti ah sidii maxaan ku raadiyay ugu soo afjaro ama lagu yareeyo in yar si la yeelaba maxaan wax walba waa tartiib lagu soo marka inaan garab ku siino ayaan u nimaanay marka waxaanan aan ka codsanaynaa madaxda shacabka dhalinyarta dhammaantooda inay maxaan ku raadiyay arrintan taageero buuxda ay siiyaan burburka reeraha maadaama qaadiga aad tahay burburka reeraha saameyn ku leeyahay qaadka saameyn weyn badan ku leeyahay